dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibadeeda caalamka waxay qaadaysaa tallaabooyin looga hortagayo xadgudubka Israa'iil. haddii dadka Soomaaliyeed ay la seexan waayeen waxa Netanyahu ku sameynaya shacabka reer Falastiin iyo dadka reer Gaza, ma filayo in shacabka Hargeysa ay aqbalayaan in looga alalaaso dalkeena taliskaas ku caanbaxay xasuuqa shacabka masaakiinta ah. berri inuu annagana xasuuqane wax diidaya ma jiraan. waxaan ku celinayaa oo aan caddaynayaa inaan ka garaabayno horeyna uga garaawnay dhibkii shacabkeenna ka soo gaaray dulmigii uu geystay nidaamkii militariga ah, gaar ahaan kii loo geystay shacabka ku nool qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya. waxaan sidoo kale caddaynayaa in weli inoo furan yahay jidka wada hadalka ee aan ku xallinayno wixii horay inooga khaldamay. ma khaldame waa Ilaahay. waxaan fariintayda mar kale u dirayaa madaxda Israa'iil. waan leeyahay Soomaaliya ma ahan dal la qabsan karo, la qaybin karo ama la gadan karo. kuma ladaysaan oo kuma helaysaan waxa aad ku taamaysaan. tani waxay sii kordhinaysaa go'doonka aad awalba dunida kaga jirteen. gabagabadii iyo gunaanadkii walaalayaal, waxaan aad ugu mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ee ka dhiidhiyey tallaabooyinkan guracan. waxaan u caddaynayaa inaysan xaqiiqoobi doonin damaca Israa'iil. aanna u istaagayno difaaca midnimadeenna iyo madax bannaanideenna oo aan u hurayno wax kasta oo qaali nagu ah. waxaan u mahad celinayaa ururada caalamka aan xubnaha ka nahay sida qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, jaamacadda Carabta, wadamada Islaamka, ururka IGAD iyo ururka suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika. dhammaantood garab istaaggoodii iyo u hiilintii ay Soomaaliya u hiiliyeen waa ka mahad celinaynaa. sidoo kale dowladaha aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada aan nahay ee nagu garab istaagay ilaalinta midnimada, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed iyo dadeed ee Soomaaliya. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dowladda Mareykanka iyo madaxweynaheeda President Donald Trump garab istaagga ay Soomaaliya ku garab istaageen ilaalinta waxa ay xaqa u leedahay Soomaaliya. guud ahaan inta Soomaaliya garab istaagtay oo dhan waxaan idin leenahay dhammaantiin beerka ka ogsooni. waana idin abaalgudi doonaa insha Allah. waxaan mar kale iyo mar kale cod dheer ku leenahay ogow Soomaaliya Soomaali baa leh, iyadaana u tashanaysa. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.